oo ku sheegay in isdagaaleen oo Sharma Boyne raaligelinta macnaha oo qaatay Funny Boyne oo raaligelinta oo fiksoo diro video oo kasoo duubay oo sameeyay oo dhahay waa qaldanahay qaladkii waa qaatay waxaas waa la soconaa horta anaga social media anaga fanaaniin maanta waxa xaaladda jirtana waa la soconaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal kulanti wacan wanaagsan halka naga daawanaysan oo Abu Ali Media hadda noo xirneen subscribe saar hadda noo xirnta video like saar siin share garay ku soo dhawaada video cusub maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay waa aniga alfanaan li aasto oo mar kale isku soo laabanay ama aasto boysa u taqaaniinba waa fanaankii la holin waayay fanaankii maalmaha magaalada qabsaday fanaankii fanaaniinta waxa way qof walba waqti u leeyahay alfanaan li aasto maanta waqtigiisu ku jira magaalkan hadda ay u sheedan tahay dad badan oo soo daystay ama soo dhaadhaanjiyay ama ku soo daystay waa aragnay alfanaan li aasto mar labaad channelka ayaan ku soo dhaweynayaa maxaa la dhihi jiray alfanaan aasto boy ku soo dhaw waa ku dhawahay mar labaad Abu Ali Media oo production loo bedelay Abu Ali production asxaabta saahar u maqasheen ba like subscribe ka share ka comment ga waa xaqiina dhac aswarsi malahan waan ku dhawahay walaalkay ma sha Allah mawduuc maanta waxa way furfuritaanka iska leh qodobadan waxa way isaga iska leh wixii qodobo ah oo macnaha barnaamijkan maanta anaga inta soo furiisan ku saabsan waxa iska leh fanaanka laakiin aniga waxaan leeyahay kaliya furfuritaanka maadaama Nuur Abko loo arko inta badan inuu dadka isku diro inuu dadka macnaha isku keeno laakiin waxaan rabnaa arin taas ka duwan maanta inaan ku falanqeyno arinta arabna falanqeyno waxay tahay dad horta qofka markuu xogaa hanti leeyahay ama lacag leeyahay oo dadka tusay inuu hanti leeyahay waxay dadku arkaan mar walba hantina lama dhihi karo laakiin istusus hantiyad marka qofku uu leeyahay waxa way dadku waxay u arkaan markaas inuu macnaha Soomaalida ninka lacag leh ama wax shilimaad siin karo dadka sareey aaminsan waxay ka aaminayaan qofkaas another level lacag waxa jirto Yurub dadka jooga lacag feega jira inta badan ay isticmaalaan oo guriga lagu daadiyo dadka inta badan isticmaalaan waa dadka almanaatiga runta markaa sheegna ka hadalna xaqiiqda gaalo waxa way dad macnaha masaakiina waxa way dawladdu loo dhigay in lacag la farjiyo ama lacag la daadiyo kale marka daawadayaal waxaan rabnaa inaan falanqeyno barnaamijka hal ka dhaxgalay saas ay tahay macnaha lacag lahaaw ama lahaan horta nin kasta wuxuu haystaa asagii anfacayaan sax laakiin waxa aad leedahay ku fiican yihiin wado qurxoon inay kaaga baxaan macnaha meel fiican aamrisid xaqiiq macnaha ku raaxaysan enjoy ku gal laakiin wada fiican macnaha wada fiican laakiin taas aniga ma leena ay wax jirayeen macnaha lacag fiigo guriga marka ninkan waxa way soo sheegay dhalinta Soomaaliyeed inuu caabiyo inuu dhalinta Soomaaliyeed wax taro haddana ninkan waa fanaan waayii dambo ama maalmaha labada maalin ugu dambeysay wuxuu soo saar heesta wada aragteen oo magaca Sharman meel ugu jiro Cabdifataax Bulshaabi horta ani fikirkeyga adana fikir leeyahay ana fikiran leeyahay sax yaani qofka bini aadamka fikirkiisa mar walba waa saliim inuu ka hadlaa inuu soo jeediyo waxyaabaha qalbigiisa ku jiro inuu dadkana macnaha waxay ka dhaadhac wax kale oo ka dhaadhacsan jiro midada kale Soomaaliya mid waligiina ogaada taageeraha fiirina mar walba waxa fiirisiin idinkoo macnaha xaqiiqda ugu dhawaanaya xaq alle runtii inaa sheegtaan lama huraan waay macnaha waxyaabaha qofka qaldan waxa jiro qof qaldan oo mar walba oo aragtiin inuu qaldan yahay haddana u saxdiin sababo macnaha aniga isleena sida lacagaas la daadina arun Malaysiin oo kale waa aragteen fiir Cabdifataax Bulshaabi oo kale hadda waxa aragtay waayii dambe inuu lacago macnaha intuu soo qaado maxaa la dhihi jiray waa aragtay dad badan u dhahaa maxaa la jihaas soo qaado oo kale horta faanka iyo waxyaabaha ma arkino maxaa la dhihi jiray in hees qof loo qaado waxa lagu yaqaanaa in dumarka lagu faaliyo oo kale sax waa horta mid labaadna ka dhaxgalay macnaha waxa aragtay ama yaanyur ama libaax horta qof kasta wuxuu yaasi anfacay laakiin faanka yaa lagu yaqaana dumarka nin rago faana nin ragma u aqaan oo macnaha hees soo qaad haddana fiiri waxa ka sii daran mataqaanaa ninka ragga ma sheegto brother ninka ragga ma sheegasho $30 hebel ku bixi iyo waxyaaba hebel lacag u diray dhalinta caawiya iyo war fiiri ciidanka aqliga kugu wata had fiiri ciidanka kale waxa uu sameeyaa yani inay wuxuu dhahaa yani muuqaal iska duwa wallahi billahi tallahi wax darajo ay ku hayaan ma jirto faa'iido laga rabo waxay tahay doqonnimada labada shilin aan soo direys waxaan aan laga marabo xaqiiqtaas marka muhiimadda waxa way dadkan oo tarax tageen dadka isdhaayaan muhiimadda waxa way ninkan qodobadiis waa u dambeeyaan laakiin muuqaalka Cabdifataax Bulshaabi uu soo duubay xitaa muuqaalkan waxa laga yaabaa laba baart inuu noqdo macnaha uu kala jarmo laba baart uu noqdo baartig haddaan soo fasaxan anaga ma kala joojin ilaa ninkan qodobadiisa uu dhameysto muuqaalka Cabdifataax Bulshaabi uu ku hadlay oo kulli isku dayay inuu kulliida fanaanka sababta qofka ma lead maayo ninkan talentigiisa isaga la soo baxay
cabdifatax bulshaawi talent inuu meel soo furiisto maanta lacag dadaadiyo xataa fiiri tiktok dadka isaga ka horreeya ay isla soo jaan qaadeen 500 600 ay haystaan okay asagana maanta ilaa hadda 100 iyo 150 kun xataa ma gaarin maxay yeelaa mataqaanaa qofku markuu xaasid yahay oo dadka isku diro oo dadkii rabay inuu kala geeyo waa la fahmaa marka muhiimadda waxay tahay ciilka kaliya ma hay ninkan sababtoo door muuqaal oo aan iga soo hadasho ilaa hadda aan ka hadlina jirto mideeda kale wuxuu dadka ka dhaadhiciyaa cabdifatax bulshaawi isagoo iska dhigaya ina muuqaalka markaas isla ogaatiin oo kale muuqaalka markii uu soo wacaa door wuxuu ku leeyahay muuqaalkaas aan duwaa of course taasna haddana waxa waaye hadli doonaa video okay marka hadda muuqaalka furno okay maanta muuqaal baa inoo hayaa muuqaalka inoo hayo waa hees hadda soo baxday oo waxaa lasoo dhigay Kiski Production waxay taalaa muddo adiga 6 saacadood bay taalaa waxaa daawaday 22,000 oo qof daawaday heestan waxaa soo qaaday nin dhalinyaro ah waxaana la yiri heestan waxaa lagu difaacayaa Sharma Boy waxayna ku socotaa waa laleeyahay Funny Boy sheekada Funny Boy iyo Sharma Boyna maray soo dhamaatay waxay ahaayeen laba noo saaxiib ah laba noo fanaaniin ah laba ma garanaysaa dad ayaga isku dhowbiyay barnaamijkoodana mar ayaa cabdifatax bulshaawi meeshaasoo kale hadda uu ka gaabsaday meesha uu dhahay laba nin oo macnaha dadka iskaga dhow waay yani meesha wuxuu soo galay qabiila meesha soo galay sax saawad arki kartiinba meesha waxaa soo galay laba nin oo dadka iskaga dhow waay uu dhahay arrintooduna arrinta marka cabdifatax bulshaawi hadduu xal keeni karo dhalinyarta xaliyo ma aha cabdifatax bulshaawi inuu xaliyaa dhalinta daarood kaliya dhalin cabdifatax bulshaawi dhalin ma xaliyo mana heshiisiyo dhalinta asaa isku diro macnaha mid labaad anaga dhalinta muqdishada maanta ku sugan daanahay macnaha baahideena dharagteena farxadeena murugteena anaga is og macnaha sax waa xaqiiqo way taas laakiin maanta nin diintiisa waxay tahay ogeyn oo meeshaas iska fadhiyo macnaha wuxuu anaga noo sheegaa wax jiro maaha sax hasa aamisana macnaha marka arinta kale oo ka hadlay wuxuu dhahay wiil Kiski Production yaalo arinta wuxuu dhahay Funny Boy iyo heesta ma shakhsi ah ku sheegta jirto inuu isaga ku socdo horta sida hore u sheegnaba isla bu'aal media hore waqtiga horeeyay ugu fadhiistay soo fadhiistay waxa waraysi aan u fadhinay waana tii asla ogeyn oo hebel ku socotaa heestan ilaa hadda aan dhihin laakiin isaga wuxuu leeyahay laakiin waxa ani waas oo gaabsaday ninkii isku gartay in asaga ku socoto asagay ku socotaa aku socona marka cabdifatax bulshaawi muuqaalkiisa gabagabiyay oo dad walaalaha saaxiiba ay noqdeen Funny Boy oo muuqaal reer gelina ka soo duubay Sharman kama soo hadal baa inta soo hadalin baa aniga halkan ka hadlay shacab badan baa ka hadlay dad badan baa ka hadlay oo faniskiisa ah sidaas limida Funny Boy reer gelin buu soo diray labadoodu isku yimaadeen way wada hadleen barnaamijkaas meeshaas ku dhamaadayba okay Kiski maanta marka oo dhahay meeshaas hadeer u leeyahay macnaha hebelkan oo ku dhahay dhalinyartaas way isdagaaleen walaalaheen oo hebel iyo hebel oo ku sheegay in isdagaaleen oo Sharma Boyne raaligelinta macnaha oo qaatay Funny Boyne oo raaligelinta oo fiksoo diro video oo kasoo duubay soo sameeyay oo dhahay waa qaldanahay qaladkii waa qaatay waxaas waa la soconaa horta anaga social media anaga fanaaniin maanta waxa xaaladda jirtana waa la soconaa sax waa inuu macnaha oo dhaho xaaladii warkaasa nimankaas heshiiskooda uu dhacay hor u dhamaaday yarkan hadeero macnaha soo rogaal celi taas uu ku qaldan yahay macnaha hees wuxuu soo geliyay nin dhalinyaro oo soo qaaday heesta markaa dhowr dad badan baa soo diray oo yaraniyo heestan ka soo hadal marka magacayga ku jiray Cabdifatax Bulshaawi yaa wacaysa baa ku jirtay marka ninka horta dhalinyarada waxaan oran lahaa oo heestan hadda soo qaaday way ka soo waaleen filan dhamaaday buuna tigidhkiisa horta soo goostay ma oranaya filan ultima oo okay horta waxaan dhihi lahaa oo dhahay macnaha hebelkaas ninkan dhalinyarada waa laga soo waalay brother si fiican yeefeer nin laga waali karo ma way ka macnaha midda labaad filan dhamaado tigidhkiisa soo goostay ayadana way ku xigtaa tigidhka haddaa soo goosto 2 sano kadib أنا أقصي ساعة تاريخ إنفان تاريخ تيجي كان ماشي على أقصى تاسنا من أذيك على تشناي معه برنامج كأشيء جوستي واحد شيء جوستني هذا إسكو أدي سنوي وحاد إسكو كيستوي اللي أسجع عشان كويه لنا اللي معناها هذا ضمر كان ولا أكو حسابين له ماشي على ده فيلم لما تيجي كيسو جوست بابا فيلم ولا غير لما سو جوست أنا دارو تاسنا أدي مو بكالة تشناي maaday oo lagu kala yaacay oo dib muddo ka soo wareegatay saacada intii uu goosanaya
hees haddii uu soo qaadi lahaa intii markuu heesta Funny Boy soo qaaday hadda adna markaa soo qaadi lahayd maanta kale ku sacabin lahaa geesi baa tan ku oran lahaa meesha oo ku dhahay intuu dagaalka socday dhalinyarada is dagaalsanayeen oo macnaha ay soo qaadi lahayd oo ku sacbi lahayd sababtu halaas u dhahay waxa waaye markii labada nin is dagaalsan yihiin hadda ninkaas saddex ku soo noqon lahayd dagaalkaas oo ka qayb qaadan lahayd waa ku sacbi lahayd taas maxaa ka fahmay oo ku taageeri lahayd maxay ugu taageeri lahayd laba nin oo is dagaalsan inaan saddex ku noqdo saddex ku noqdo oo ugu taageeri lahayd sax taas uu ku qaldan yahay horta mid koowaad anigana ilaa hadda saa hore u sheegay oo mar labaad u sheegay mar koowaad u sheegay ilaa hadda qof ay ku socota haystaa ma dhihin wuxuu asaga abaabushay oo dadka raba inuu iskugu diro oo raba inuu iskugu diro dhalinyarta iskugu diro oo ka dhaadhiciyay macnaha taasna ma u suurtagelayso laakiin adoo og waaqica jiran ka dhaadhacsan fahansan inaad waxa weeye hees hadda soo qaado heesaas weli aad tiraa Sharma Boy baan ku difaacayaa Funny Boy baan ku karbaashayaa horta heesta maalinkay soo baxday ilaa hadda wuxuu ku celcelinaya Funny Boy aan ku difaac yani Sharma Boy aan difaacay Funny Boy ilaa hadda muuqaal ninkan uu doonin kuma jirto meel Funny Boy la heestan magaceeda kuma jirto magaciisa muuqaalka uu doonin kuma jirto horta labada nin oo ka sheekeenayo oo ah Sharma Boy iyo Funny Boy niman aan is arkin oo hashada iska aragna kaliya ma aha macnaha niman oo waxa waaye waqti aan wada qaadanay isla soo ceeshanay maanta wadanka isla joogtay DBF isla qaybsanay ahaayeen inkastoo hadda maanta isku wada saddexdeen isku meel joogna saddex meel kala joogno haddana rag is arkay oo macnaha wax isla qabtay oo macnaha oo wada sheekaystay oo wax isla macnaha base isla dijiyaan macnaha wuxuu naga dhigaa rag is arkin iska warqabin is aqoon brother taasna ku sirantahay okay anagoo muuqaalkan dhameysanin horta muuqaalkan muhiimadiisa waan ognahay yani muuqaalkan meesha u socdo ma dhaafsiisana halaha hadda isaga anaga nuxurka dadka ay fahmeen halaha hore hordhiciisa ma dhaafsiisan ilaa muuqaalkan uu ka dhamaado yani muuqaalka dhan wuxuu noqonayaa mawduuci hadda uu ka hadlay adig iyo Funny Boy sax marka qodobada noo gudagal maadaama muuqaalku aad u badan yahay nooma suurtagelaysa inaan dhammaantiis soo wada gudbino marka waxaan sameynaynaa muuqaalka part kale loo sameynaa insha Allah qaybta ka hartay muuqaalkan waxaa la socon doontaa part 2 hadduu ilaahay yiraahdo